xukuumadda Somaliland ayaa ka hadashay gabadh xalay lagu dilay magaalada Hargeysa waxaana dilka gabadha lagu eedeeyay inuu geystay nin ka tirsan ciidamada militariga Somaliland sida uu sheegay marxuumadda dhimatay aabaheed. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحنا عضينا أنا إنت نجمع عبد الله محمد بهذا مرحومة ده وحنا إنت إذا ودي لين كاسي برد هيل وإن أنت هذا وهيلين يي وأيستلين ما أنت جالين كيورا وضح لين أيو قرية وساق عتمر كواركي إن يقولوا إذا وده هرتي إذا أيو تاجنتي أيو سلا أوجد بود لين أنت هيل لو ودي لي إذا كقرن هو كتسوى كاشان لسرع وسركالو مسؤولة ولبا qoraal ay baahisay wasaaradda beeraha Somaliland ayaa lagu sheegay in gabadha dhimatay oo lagu magacaabi jiray Najma Cabdilaahi Michael ay ka tirsaneyd shaqaalaha wasaaradda beeraha Somaliland waxaana wasaaraddu qoraalka ay baahisay taasi ugu dirtay qoyska iyo qaraabada ay ka baxday marxuumaddu waxaana qoraalkaasi lagu yiri sida tan wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Jamhuuriyadda Somaliland Maxamed Xaaji Cismaan agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha Aadan Cabdilaahi Sheekh Muuse agaasimo waaxidada shaqaalaha iyo guud ahaanba bahda wasaaradda beeruhu waxay tacsi u dirayaan ehelkii iyo qaraabadii marxuumad Najma Cabdilaahi Michael oo ku geeriyootay Hargeysa. Mas'uuliyiinta wasaaradda beeraha Somaliland waxay murugada la qaybsanayaan ehelka iyo qaraabada marxuumad Najma oo Allah u naxariistay ee ka mid ah shaqaalaha wasaaradda beeraha Somaliland xalayna qacanka xaqdaran ku dishay Hargeysa. dhinaca kale agaasimaha xuduudda shaqaalaha wasaaradda beeraha Somaliland Yasmin Xasan Saciidi oo la hadashay warbaahinta ayaa sheegay in marxuumadda la mehersaday isla markaana ay ku mashquulsanayd sidii ay ugu diyaar garoobi lahayd qalgalkeeda oo lagu waday inuu dhaco bacda ciida. weli dhacdadan dilka kamay hadal ciidamada kala duwan ee Somaliland